jaraa'id oo maanta qabtay barasaabka gobolka Awdal ayaa waxa uu shirkaasi jaraa'id kaga hadlayay oo uu ku soo qaaday guddigii qabanqaabada xuska 18 May ee qarannimada Soomaaliland uga howlgali lahayd gobolka Awdal guddigaasi oo isku jiray laamaha dawladda doomiyaha gobolka Awdal oo ku dhawaaqay guddiga qabanqaabada xuska 18 May waxaan maanta u qabtay shirkan jaraa'id inaan ku dhawaaqo guddigii qabanqaabada 18 May oo nagu soo fool leh ee gobolka Awdal ka howlgalaysay khaasatan magaalada Boorama degmada Boorama ayay ka howlgalayaan guddidaas waa guddida ka shaqeynaysa ee soo diyaarinaysa sidii ay u qabsoomi lahayd qurux iyo wanaagna ugu nabadgelyana ugu dhici lahayd 18 May dabaaldegeesu guddida waxa uu horeeya anigoo gudoomiye gobolka Abdu Ahmed waxa gudoomiyaha degmada Saleebaan oo meeyarkiya ogayaha fulinta ee dowladda hoose ogayaha fulinta ee gobolka wasaaradda warfaafinta isuduwaha wasaaradda awqaafta diinta gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha ururka naaw ee gobolka iyo shan xildhibaan oo golaha deegaanku ay soo magacaabayaan magacyadooda guddidaas ayaa waxay noqon doonaan oo tiradoodu ah 14 xubnood weeyaan ayaa waxay noqon doonaan guddida qabanqaabada 18 May ee magaalada Boorama degmada Boorama ee gobolka Awdal inta shirka jaraa'id aan u qabtay waa intaas iyagana waxaan rajaynayaa inaanu dhaqso aanu isugu nimaadno khamiista subaxa khamiista ayaanu howlgalkayagii koobaad ee u horeeyay aanu kulankayagii koobaad oo horeeyay aanu samayn doonaa sidaan maanta shirka u qabtayna waa intaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guddigan qabanqaabada uu maanta soo magacaabay gudoomiyaha gobolka Awdal Abdu Ahmed Ayer ayaa waxa looga fadhiyaa inay iyagu qaban doonaan qabanqaabada xuska gobolka Awdal taasi oo abaabul aad u ballaaran iyo miisaanba uu xaqooga saaran yahay Ahmed Diiriye Ciltire shabakada Mandeeq News magaalada Boorama